nuxurka warqad qoraalaha uu soo saaray taliyaha ciidanka sirdoonka qaranka ee Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa uu kaga jawaabay amarkii maalintii shalay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu ku amray inuu 48 saacadood gudahood uu war kaga soo saaro isla markaana uu horkeeno cadeymo dhaba dilka sarkaaladii ka tirsanayd hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Ikraan tahliil oo labadii bilood u dambeeyay waalidkeed iyo qoyska ay ka soo jeedaa ay si aad uga cabanayeen isla markaana ay dawladda iyo hay'adda sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ay ku eedeynayeen inay qafaasheen isla markaana ay ka dambeeyaan afduubka loo geystay iyo dilka la shaaciyay maalmihiina soo dhaafay nuxurka warqadda qoraalka ee uu soo saaray taliyaha nabad sugidda sirdoonka qaranka dawladda federaalka ee Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa u dhignayd sidan ku ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble og wasiirka amniga gudaha mudane Xasan Xundubey Jimcaale og gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan og madaxweynaha jamhuuriyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ujeedii codsi soo jeedin warbixin amni mudane ra'iisul wasaare naga gudoona salaan qiimo leh anigoo fulinaya amarkaaga maankana ku haya xasaasiyadda kiiska sarkaalada Ikraan tahliil oo noqotay mid heer qaran ah gudanayana waajibaadka naga saaran amniga qaranka fahansanna in dhacdadan ay si toosa iyo si dadbanba u qusayso xafiisyo iyo hay'ado kala duwan oo dawladda ka wada tirsan xaqna u leh inay ogaadaan xaqiiqada dhacdadan iyo xogta ay xambaarsan tahay warbixinta aad naga dalbatay ayaan waxaan si sharaf leh kaga codsanayaa inaad warbixintan ka horjeediyo golaha amniga qaranka oo wada dhan oo ay xubnaha ay ka midka yihiin hay'adaha iyo xafiisyada ay arrintaasi khusayso si taas ay u fusho hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxay codsi rasmi ah u dirtay madaxweynaha jamhuuriyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya inuu fursad noo siiyo qabsoomidda shirka golaha amniga qaranka maadaama uu yahay gudoomiyaha golaha amniga qaranka ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dawladda mudane ra'iisul wasaare waxaan ku kalsoonahay inaan la wadaago golaha warbixin buuxda oo daah furan isla markaana ku qotonto xaqiiqada halkaasina laga gaadho go'aan taabanaya dhammaan hay'adaha ay khusayso kiiskani